arintaas Axmedow waa arin isu soo taraysa oo aad isu soo taraysa dadka deegaanka ee Muqdisho qaasatan beesha oo ka dhashay ninka la yiraahdo Qayr Mursade laf kamida oo waliba laf weyna oo magacaad loo yaqaan ayaa waxay cadeynayaan inuu san Qayr ka tirsanayn ama ka dhalan beesha Mursade odaga Qayr la yiraahdo Xasan Cali Qayr la yiraahdo odaga maartay Cali Qayr la yiraahdo inuu san dhalin laakiin habarta uu qabay waayo odagu ilmaha kala uu dhalay islaanta waxa la yiri hadda waxay ku nooshahay xaafada meesha degmada la yiraahdo madaynile ku nooshahay odagu uu qabay laakiin waxay ahayd islaamihii rotationka ama maartay degmooyinka ka ahay madaxda maartay qol-oleyn jiray marka waxa la yiri rag waxay sheegeen ragaas oo ay cadeeyeen in uu la tuntay Siyaad Barre oo uu dhalay Siyaad Barre ayaa la sheegay ka bacdina uu noqday ciyaalkii kacaanka waxa waliba su'aalo badan dad aan ka weydiiyay waxay sheegeen oo arintaan isagu ma ka warqaba waxay yiraahdeen wuu is og yahay waxaan kala weydiiyay adinku ma ogeydeen waxay yiraahdeen waan anagu gadaalan hadeertaan maqalnay dhaheen yaani macnaha jilibkan hadda warka sheegaya waxay yiraahdeen anagu haddaan maqalnay laakiin reerkiisa hoose way ka warqabaanay dhaheen inuu san ahayn oo odagu uu san dhalin laakiin uu ahaa maaragtay Siyaad Barre dhashiisii macnaha lagu dhalay sariirta gogol dhaafka marka isagu waa Xasan Maxamed Siyaad Barre waa Xasan Maxamed Siyaad Barre okay in dadku waxay ku leeyihiin maxaad kala ugu sii faahfaahin kartaa dadku way yaabeen halkan commentiga aad bay soo qorayaan yaad ka maqashay dadku soo celinayaan warka arintan sida xaqiiqda ah beesha Mursade Berweynta Hawiye ka tirsan waa laba lafood yaani waxa weeye waa Sabti iyo Fool Culus nimanka laga hayo warkan waa nimanka Sabti la yiraahdo ayaa sheegay rag yaani waliba rag waaweyn ayaa arintan cadeeyay website ayaa soo qaatay oo ka qoreen waxaan la yiri marka ma sheegaysiin oo arintan banaanka ma soo dhigaysiin waa arintan waliba waxay ku soo aadaysaa ogta Axmedow arintan waxay ku soo aaday 3-4 cisho ka hor 5 cisho ka hor ay ku soo aaday yaani intan mishinku imaan wax yar ka hor waxay dhaheen xoogaa magaaladu way qasan tahay arintan wax yar gadaal aan dhigaynaa laakiin banaankan keenaynaa ay dhaheen waan cadeynaynaa inuu san ka dhalan beesha waxa anigu marka iri dadkaas maadaama aan weydiiyo waxa iri way aad marka u qariseen inaan 4.5 inay jagadu taawad ogtihiin in maartay oo dad matalayay ninaan deegaanka u dhalan ama aan dadkii u dhalan islaantu haba dhashay laakiin ku yimid maartay gogol dhaaf ama dad kale ka dhashay way aad adinku jagadan u siiseen anagu gadaalan ka ogaanay yiraahdeen ma ogay asaga familkiisa hoose ama jilibkiisa hoose ma ogaayeen arintaan aan iri way ogaayeen la yiri laakiin asaga laftirkiisa iska warqaba la yiri inuu yahay Google Dhaafka Maxamed Siyaad Barre oo dhalay in qof wuxuu ku soo qoray commentiga anagu waan dareensanaa inaanu ahayn markii in dadkii deegaanka magaalada Muqdisho beesha Hawiye guryaha loogu daatay la laayay dhalinyartii beesha Hawiye in loo dhacay xaasaskoodii marka in maxaa arintan noocan sidee marka shacabka reer Muqdisho ugu cuntami kartaa laba nin oo isku reera inay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare noqdaan ilaa labadu waa isku reera horta arintaanu shacabkan qabiilku markuu balaaran yahay dabcan wax walba ka soo baxaya de naagahan la qabo oo la iska controleyna dabcan wax walba keenayaan dadku de shacabka humaartay islaantan hoosteeda ma aysan ilaalinaynin ama kama aysan warqabin laakiin arintan markii la baaray dabcan aba jufadiisi qayb kamida warkan oo ka soo duxay dadkan familkan kale ee Mursadana waa arintii way dhagay u raariciyeen way dhageysteen arintii marka waxay dhaheen waa soo baarnay ay dhaheen waliba niman adigu ilaa 6 nin ayaa arintaas soo cadeeyay oo yiri arinta waa soo cadeynaynaa annagana sii doonay dhaheen waliba la wadaagi doona idaacadaha marka kullay hadeertan keenistooda waxba tirimayso waxay ahayd inay keenaan xilli hore si maartay wadanka dib loogu noqdo doorashada aysan maartay looga qaado nin aan u dhalan maartay aan ahaynba macnaha dadkii deegaanka ama maartay xaq u lahaa jagadan maadaama uu san ahayn
marka ay ahayd nin lagu keenay Google Daaf waa waxa kale oo aan maqlay gabar ayadana sidoo kale aan rabin halkan hadda inaan ka sheego ayadana qabaa'ilada kale mid kamida lagu sheegay oo sheegata laakiin la ogaada ayadana in Siyaad Barre dhalay marka odaga Siyaad Barre waxba lagu leeyahay naagu la tuman jiray subhanallah waa wax la yaabo waxa lagu leeyahay islaantii ama gabadhii oo markaas ka helaa maaragtay uu iskala tuman jiray leeyahay marka ciyaal badan oo dhalaaba magaalada joogta lagu leeyahay ciyaalka kacaanka baxdaad maqashay lagu leeyahay waa wuxuu dhalaa asaw badankooda ba asaga dhalay de wixii maaragtay markaas ama banaanada laga qaado ama maaragtay ciyaal waxa la soo tuura aan ahayn laakiin inta maaragtay qaar badan aa jira la yiri oo asagu u dhalay marka de miduna de maaragtay oo kulay intii u diiwaan gashanayd ama islaamihii u diiwaan gashnaayo de meherka uu ku qabay mooyaane inta kale waxa weeye wax la sheegta ma aysan ahayn runtii dadku caawa boqolaal iyo kumanaan qof baa ku daawanayo aad iyo aad waraysigaagan ula dhacay runtii qof walba wuxuu leeyahay maanaan ogeyn waan dareensanaa ma filayn macnaha kamay dhicin adduunka qof deegaankiisii iyo dadkiisii dulmi iyo hantidii deegaankiisa kasoo baxaysay ku bixinaya magaratay xaqdarro dhulkiisa qarxayo aan ka damqanayn dhibaato ka jirto magaranaysaa macnaha marka dardaarankaaga maxaad u diri lahayd maadaama qof caan oo de inta badan dadka halkan ka daawanay kumanaanka way ku garanayaan qof caan oo de maartay aqoonyahana oo de ka hadasho warbaahinta waaweyn iyo baraha bulshadaba oo siyaasiyada bal la dardaaran dadka wax magaratada ee aan de caqliga lahayn haddana dadka ugu badan ee Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Banaadir dega bal maxaad ku leedahay baan dhiga lahayn kuwa de madaxdayaasha horta waxaan leeyahay odayaashii soo sheegay arrintan waxaan leeyahay aad kaga mahad celinayaa bad waad soo daahdeen aan leeyahay waqtiga aad warka soo sheegteen waa too late yani waa xilli uu ku qareebtay wuxuu dili karana ku dilay wuxuu dhici karana ku dhacay magac beelaawiye waxaan leeyahay wixii magacaas horta beelaawiye lagu jaaifeeyay ama lagu dhibaateeyay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka raali ahaada wax maarta u yaala macnaha anaga magaceeni lagu qasaaray weeye waana ayaan darada ummadda Soomaaliyeed haysata ee ku habsatay iska warqab la'aanta iyo waxaan la ogeyn oo maarta la iska keensanayo ama aan la soo baarin midda kale beeshan maanta ay ku dhacday jabkan ina Siyaad Barre oo u noqday madaxweynaha asagoo qabiilkoodii matalaya in ay ka feejignaadaan dadka ay keensanayaan iska soo baaraan oo asal iyo fasalkooda la soo ogaado aysan iska keensan macnaha beesha murursadeen lana macnaha si dadka kale u fahmaan kumanaan bayna daawanay moogta caawa maya beesha murursada dad xalaala oo ehelul karama oo ehelul sharaf ah ka buuxda in yaro maartay isaga daba taagan oo waliba xataa ka warqabin mooyaane laakiin dadku waxay u badan yihiin ehelul karama u badan yihiin oo sharaf leh oo la yaqaano dad lagu ciyaari karo maahan Cali Wardhigley baa ka dhashay laakiin waxaan leeyahay hadda ka bacdi inay